Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka Cadnaan Yaasiin. Warbixinta waxaynu ku eegi doonaa qaybtii saddexaad ee uguna dambeysay dhaqamada ugu la yaabka badan ee adduunka. Haddaba intaanu u gelin muuqaalkeenan maanta waxaan kaa codsanayaa inaad channelkan subscribe garaysid oo nagu soo biirtid si aad ula socotid dhacdooyin iyo warbixino cajaa'ib ah. warbixinta koowaad ee aynu ku eegi doono qaybteena saddexaad waxa weeye daawade ka digista isticmaalka khadka cas ama qalinka cas hadba qof siduu yaqaano. Dhaqankan ayaa waxa uu ka jiray bariga hore dalka Kuuriya, iyada oo khadka cas lagu qori jiray magacyada dadka dhintay. Markaa khadka cas ama qalinka cas qofba siduu yaqaano lama ogoleen in bariga la isticmaalo, waana looga digi jiray dadka ku nool Kuuriya oo lama ogoleen inay isticmaalaan khadka ama qalinka cas. Waxayna aaminsan yihiin dadka Kuuriya in qofka khadka cas lagu qoro magaciisa inuu wadkiisu soo dhawaani doono oo uu dhimani doono waqti kooban gudaheedna lagu aasi doono, taas oo dadka ka baqdin gelisay inay isticmaalaan khadka cas. Warbixinta labaad ee qaybteena saddexaad waxaan ku eegi doonaa musaaracada geela. Haddaba in xayawaanka la isku diro ama lagu dhiirigeliyo inay dagaalamaan ama ay musaaraceeyaan waa waxyaabo aan la ka ogoleen meelo ka mid ah adduunka. Haddaba iyadoo taasi jirto ayaa waxaa lagu tiriyaa musaaracada geela hawlaha aan sababin dhibaato badan. Dhaqankan ayaa waxa uu ka mid yahay xafladaha ama ciidaha ku faafay dalka Turkiga, iyada oo la isku soo saarayo laba awr oo baarqab ah, kadibna inta la isku diro xagaa ku dagaalamayaan oo dad badan oo lacag la ka qaaday ay daawanayaan. Haddaba dhaqankan qayb ka mid ah ayaa wisuus ah, sababtuna waa inuu geelu ku seedhiyo dhareerkiisa daawadayaasha daawanaya isaga oo aan u jeedin. Warbixinta saddexaad ee aynu ku eegi doono qaybteena saddexaad waxa weeye booditaanka ciyaalka. Dhaqankan la yaabka leh ayaa waxa uu ka mid yahay dhaqamada ku faafay dalka Spain, iyada oo looga dan leeyahay in ciyaalka laga saaro jidhkooda lagana eriyo shaydaanka. Waalidiinta ciyaalka yar ayaa soo istaagaya iyada oo qalbigoodu buuxiyey baqasho, kadibna waxaa imanaya dad ku labisan dharka shaydaanka, waxayna isku diyaarinayaan inay ku dulboodaan ciyaalka yar oo laamiga wadhan. Dhaqankan ayaa waxa uu socday muddo aan ka yareen 400 sano. Haddaba daawade, hadday tahay markii kugu horeysay ee aad channelka soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe garaysid, muuqaalkana like garaysid. Warbixinta kugu la yaabka leh ee aad daawatayna inaad commentiga ku soo qorto.